ururada arrimaha bulshada ee ka howlgala gobolka Togdheer bahda warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee dhalinyarada oo iskood isku xilqaamay ayaa magaalada Burco ka bilaabay barnaamij ay ugu magac dareen gurmad walaal barnaamijkan oo lagaga qayb qaadanayo soo caawinta dadka walaalahood ah ee ku tabaalaysa magaalada Beledweyne ay fatahaadadu waxyeeleeyeen dhalinyartan oo warbaahinta si wada jir ah ula hadlay habeenkii xalay ayaa fariin u diray bulshada ku nool guud ahaan gobolka Togdheer ganacsatada iyo xukuumadda Somaliland in ay ka qayb qaataan arrinta tabarucaadka ah ee loogu magac daray soo caawi walaalkaaga Beledweyne laba qodob baan ka hadlayaa waxaan ku hadlayaa afka ganacsatada sidoo kale waxaan ku hadlayaa afka dhalinyarada gobolka Togdheer badankoodaba intooda fikirka togan ka ganacsiga ahaan anagu waxaan diyaar u nahay in aan wax kasto aan nolol timaadaan aanu iskin garab taagi doono haday mariya noqoto iyo haday raashin noqoto iyo haday dhar noqoto qayb kasta oo kala duwan ba insha Allah billahi kariin diyaar baan idinahay waan idin soo dhaweynaynaa caawa halka waxaynu isugu nimi inaynu xoojino oo taakiidino taageero isgarab taagno dhalinyaradii iskood isku xilqaamay inay caawiyaan oo garab istaagaan walaalaha reer Beledweyne ee masiibada daadadku aafeeyeen waayo halka waxa ku noolaa dad hooyooyina oo maata oo maxasa oo dhamaantood barakacay jeedka caawa aynu halkan isugu nimi qof waliba uu ka dhareegsan yahay waa barbar istaagida iyo ku dhawaaqida olole aynu ugu magac darnay gurmad walaal ama ololaha gurmad walaal oo aynu ku caawinayno oo isku barbar taagayno dareenkooda la wadaagayno walaalaheena Beledweyne ku dhibaataysan ilaahay baa quraankiisa ku sheegay wa tacaawanu 'ala al-birri wat-taqwa intaas aynu ugu fulan hal ku dhiginaga caawa halkan waxa isugu yimid dhalinyaradii gobolka Togdheer labeentoodii hal doorkoodii sare gudoomiyaasha ururada arrimaha bulshada qaar kamid ah garyaqaanada magaalada Burco iyo aqoon-yahankii iyo dhalinyartii halkan waxaanu ku taakiidinaynaa gudi dhalinyara oo iska wax u qabso wax ku wada kuwaas oo gurmad walaal la magac baxay ololahan caawa halkan kaga dhawaaqaynaana waxa la yiraahdaa gurmad walaal qof kasta oo reer Burco ah oo shakhsiya oo gurigiisa loogu yimaado waxaan ka codsanaynaa inuu dadka u yimaado dhalinyarta wixii uu heli karayo hiil iyo hooba uu soo dhiibo qofka meherad haysta iyo ka bacad la haysta iyo ka dukaan haysta iyo ka haysta koryaan laba sadaqadu waa ku waajib waxaynu la baxnaa waa sadaqad ama meel dheer ha tagto ama meel dhow ha tagto Beledweyne dad islaamo baa ku tabaalaysan hooyooyin caruur maato dad jilicsan baa jooga waxaan leeyahay kaliya dadkaasi inaynu caawino un baynagu aynu isugu nimi caawa kala urur ahaana anagu waxaanu nahay dad mar walba bulshada u taagan horumarinta bulshada u taagan iyo inay dadka jilicsan taa kuleeyaan waxaad arkaysaa caruur yar yar oo guri dhakadii saaran waa duruuf aad iyo aad u adag baa la oran karaa marka waxaan leenahay in gurmana dadka ku nool Beledweyne walaalaheena ee muslimiin Ahmed Maxamuud Ibrahim Boqorre laantafka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Burco si aad joogto uga hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaangeli channelka YouTube-ka ama dooro bogagga baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka